أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalaha caalamka nala socda waan idin salaamaynaa. salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. meel kasta ood ku nooshihiin oo aad joogtiin, ilaahay ha idinku xifdiyo. waxaan cajaladdan ugu talagalnay aniga iyo macalin Hibo in aan idinla wadaagno runtii laba arrimood. kow, tacsi in aan u dirno walaalihii ku geeriyooday caalamka meel kasta joogaan. labo, in aan idiin sheegno inaan nabad qabno. sawirkii fool xumaaya maaragtay beenta ahaayee la sheegayay inaan idinka wargelin. marka halkan caawa magaalada Birmingham baan joognaa. bishuna waa 5 April. anigii macalin Hibo waa nabad qabnaa alxamdulilah. ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka iyo sharka haynaga wada xijaabo. inta ay asiibtay ee ay soo gaadhayna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad taama uu siiyo oo uu ka kiciyo. inta ku geeriyootay aad baan ugu tacsiyanaynaa. dadkii ay eheladii ay ka baxeen iyagana ilaahay qabriga ha u nuuro. waxaan runtii tacsi qaaliga u dirayaa reer Sweden siday u dhan yihiin, caasimadooda ilaa dalka siduu u dhan yahay. maxaa yeelay annaga runtii aad bay dadkaasi noogu wen yihiin oo reer Sweden. allaha barakay. reer Stockholm aad baan uga naxnay, geeri isdaba gashay. waan idila dareemaynaa marka xanuunka insha allahu tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii geeriyooday qabriga ha u nuuro, dembigooda ha dhaafo. sidaas si la eg reer UK dabcan inta xanuunsanna allaha caafiyo, dhakhtarada jiifta. reer UK dabcan dad kala duwan baa iyaguna ku geeriyooday oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cadde. ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigiisa ha dhaafo, qabriga ha u nuuro. iyo intii ma aragtay aan jeclayn la yaqaanay ee bulshada Soomaaliyeed magac iyo maamuusba ku dhex lahayd ee iyaguna maaragtay xijaabtay. ilaahay subxaanahu wa tacaala qabuurtooda ha u nuuro, dembigoodana ha dhaafo. ehelkii iyo caruurtii iyo qaraabadii ay ka tegeenna annaga oo dhan sabir iyo iimaan allah inaga siiyo. inta London ku xanuunsan ama UK oo dhan ku xanuunsan ee jiiftana ilaahay waxaan ka baryayaa caafimaad taama oo degdeg ah inuu ilaahay siiyo biidni illaahi alkariim. sidaas la eg tacsidu kuma eka uun UK iyo Sweden iyo Yurub, meel walbo ee caalamka ka jirto ilaa geeska Afrika waan gaarsiinaynaa dadka ku dhintay. allah u naxariisto. maraykan sidaas la eg iyo Canada. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin xifdiyo. waxaan dabcan Hibo خير الله كسير. جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. إلهي بان هرتو مهنقينا عافماد نسيي إيمان نسيي runtii waxa weeyaan waqti waxaa la joogaa iimaanka bilaadanka la gilgilayo, la imtixaanayo. imtixaan ayaa dhacay runtii. waxaan kamaynaa filanayn, waa iska nooleen. maalin walba waan iska toosi jirnay, iska socon jirnay, iska cabi jirnay, waan maqli jirnay siirada iyo taariikhda. dad buu maaragtay xanuuna ay dhameeyeen, dad bay daacuuna ku dhaceen, waan maqli jirnay uun ilaa aan indhaheenna hadda uga aragno viruska yar ee kooban ee la arkayn oo ishu ay qabanayn baahan daro adduunkii sida u gelgelay. ilaahay quwadiisa iyo ilaahay awoodiisa inaan xasuusano weeyaan. noloshu maaragtay nooc kaliya maaha. marmar waxay leedahay imtixaan, marmar waxay leedahay farxad, marmar cabsi bay leedahay. nooc walba qofka bilaadanka ee muslimka iyo qof walba soo maraya. haddii ilaahay iimaan iyo qur'aan iyo diinna barana waxay tahay inaan maaragtay fahano waxaasoo dhan. awoodda ilaahay iyo raxmadda ilaahay inaan wax kasta ka dhex aragno. runtii coronavirus oo maaragtay waqtigan socda haddii aan u fiirsano waxa weeyaan awoodaha ilaahay ee ballaaran ayaan ka arkaynaa. waxa weeyaan qofka bilaadanka iimaan ayaa uga kordhaya. qofka bilaadanka shuuntiisoo dhan buu soo ururinayaa. malakalmood isagoo mar walba intuu kuu soo jira aad ogeyn baad handara waxaad arkaysaa runtii oo naxdin leh. dhimashadaba maaha qofkaagii oo maanta marka lagu sheego xanuunka haddii lagaa qaado aana dib dambe aad u arkayn. bac baa lagu xirayaa, box baa lagu soo ridayaa, dib dambe uma arkaysid. xataa aaskiisa meeshaabaad ka joogsanaysaa, laguma ogola inaad u soo dhawaatid. waxaasoo dhan ayaa naxdin iyo argagaxle. maaha maad aragtay xanuunka laftigiisa iyo dhimashada laftigeega maaha. ilaahay qur-aankiisa waxaan xasuusanaa aayaddii ilaahay uu yidhi walaqad arsalnaa إلى أمم من قبلك
فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون بو إلهي يدي وحويان وحكست أو دعايا إن خشيد إيبان يا كعبسي إنه كهشي أيا قفك بلادن كلا ربا ولا ليالو وحا ما ركتي إنتينا عافمات كقبتي إلهينا وشكرنا إنت نجح نوصل إلهينا نبرنيلو إلهينا عافية إنا نتعسينا ضدك الصوماليات meel kastay joogaan London ha joogaan Sweden ha joogaan meel walba ha joogaan oo geeridu ay ku timiday oo maaragtay sababtu xanuunkan uu sabab u noqday inay geeriyoodaan ehladooda inay Ilaahay iimaan iyo sabar ka siiyo Ilaahay inuu shahaadada ku daro insha Allah waxa weyn Ilaahay inuu naga badbaadiyo Ilaahay inuu umuurteena oo dhan soo ururiyo oo dad dhimashada diyaar u ah inaan noqono ayaa muhiim ah runtii qofku hadduu dhimasho isku diyaariyo wuxuu ka baqayaa male walaa coronavirus buu ka baqaa walaa wax kale laakiin waxa murug na gelinaya caloosheen xanuujinay waxa weeyaan sidaan u kala daadsannahay waxba noogu habeysnayn noogu hagaagsanayn waxaan rabaa in aan maaragtay Ilaahay u barino ummadda islaamka oo dhan iyo ummadda Ilaahay khalqigiisa oo abuurto dhan inuu Ilaahay maaragtay ka badbaadiyo waxyaalahan inuu Ilaahay ka badbaadiyo dhulkeenii Soomaaliyeedna Ilaahay inuu ka badbaadiyo dhulkii Soomaaliyeed runtii tabarteenu intay taa waa la wada garanayaa in anako saas daciif waa bal hadii uu maartay qof aan ka naxayna mas'uul ku yahay ka war ya qof aan naxariis balahayn oo wax kastaba business iyo faa'iido iyo sidoo wax uga faa'iideysata ka dhax arkaya hadii uu mas'uulka ku yahay ka war waxa weeyaan waxaan halka uga jeedaa waa in ummadda heer Djibouti dhibaatada ay ku jiraan Ilaahay inuu ka kor qaado Ilaahay ugu madaro ma aragtay dhibta ay ku jiraan ee joogtada ay ugu jireen Ilaahay dhib kale ugu madaro Ilaahay waa raxiim intaas waxaan ku soo koobsanayaa kelmadeedii bayna Ilaahay kariim Ilaahay nacaafiyo aad baa mahadsantahay hibo dabcan fariinta waxaan la wadaagayna waxa weeye waa nabad qabnaa bicihii aad arkayseen cajaladii beenta ahayd dadka lagu dhex faafiyey waxba kama jiraan Birminghamna ma ahayn meel u dhowna ma ahayn masjid Birmingham ku yaalo oo maaragtay lagu soo daadiyey ummadda meydka intaa la egna waxba kama jiraan caqliga maba galayaba waxaad ogaatiin walaalahay sida macallin hiba ay sheegtay dabcan qofka haddii uu dhakhtar ku dhinto maba dhici kartaba in la qaado dadkiisii baaba xataa loo ogolay sidee meel kale inta maaragtay la qaado lagu daamgaray loogu daadkay marka waxaas walaalayaal waxba kama jiraan reer Birmingham way nabad qabaan alxamdulilah inta reer Birmingham ay geeriyootay Ilaahay subxaanahu wa tacaala odayaashii geeriyooday ahaa magaalada Birmingham odayaasha u ahaa Ilaahay qubuurta ha nuuro dambigooda Allah dhaafo waa wada naqaanay maamadii ku geeriyootay sidaas la eg Ilaahay ha u naxariisto oo qabriga ha u nuuro ehelkii caruurtii ka tageenna Allah subxaanahu wa tacaala sabir iyo iimaan ha inaga wada siiyo dhammaanteen waxaan ku soo koobay insha Allahu tacaala reer Afrika iyo maya inta qurbaha joogtay Mareykan iyo meel walba joogtay coronavirus waa maaragtay aafo timid aafada timidayna Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faraya inaan qaadano xadarkeena inaan qaadano digniinteena inaan raacno dhakhaatiirtu waxa ina farayaan dawladuhu waxa ina farayaan mas'uuliyiintu waxay inoo sheegayaan inaan raacno qaadano caafimaadkeena ku jira danteena ku jirta masaajidii baa la xiray salaadii baa guriga ku dhex tukan lagu yiri maxaad sugaysaa marka yacna Ethiopia Soomaaliya Djibouti Somaliland Kenya meel kaste dadka waan ismaqalay dadka Afrika jooga wali waxaad moodaa qaarkood in badan in ay ka warqabin ama ku baraarugsanay ama ay dhoohan yihiin oo yacni waa hargab ay ku leeyihiin ilmaade reyaalo cid kuu soo cararaysa ma jirto oo cid caafimaadkaaga maaragtay wax kaaga qabanaysa ma jirto adiga caafimaadkaaga maanta gacanta ku haysta adaa lagaa rabaa in aad maaragtay iska karantiisho oo aad ka fogaato waxa kuu keenaya mushkiladaas maaragtay aafada caalamka dadka reer Djiboutina Ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj ha idin furo Soomaali oo dhan meelay joogto Ilaahay ha idin xifdiyo dadka muslimiinta meel kastay joogaan Ilaahay sharka inaga xijaabo khayr baan idin rajaynaynaa badan Ilaahay dambi dhaaf ha inooga dhigo khayr badanna Allah ha noogu bedelo imtixaankan galay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh